وحكومة hogaamiyey da'dii yaraa ee boqolaal sano ka hor soo furtay Istanbul. Ciidamo hogaaminayay Maxamed Al-Faatix ayaa Istanbul galay 29 May 1453 waxaana sidaa ku soo afjarantay boqortooyadii Byzantine-ka ee Kiristaanka ahayd. Maxamed Al-Faatix oo markaa da'diisu ahayd 21 sano jir ayaa jab aan la filaynin gaarsiiyey ciidamadii boqortooyada Byzantine-ka waxaana uu halkaa ku dilay boqorkii xilligaas ee Byzantine-ka oo la oranayay Constantine. kaga bogo muuqaalkan oo dhammaystiran insha Allah. aabihiisa muraadkii labaad oo xukumayay boqortooyadii Cusmaaniyiinta ayaa sanadkii 1444 taariikhda miilaadiga xilka ku wareejiyay wiilkiisa Maxamed oo 12 jir ahaa. wiilkaas da'da yar ayaa xukunka wadi waayay waxaana aabihii uu mar kale hoggaanka ku soo noqday 2 sano kadib si uu ula tacaalo xiisado ka taagnaa dhulka ay Cusmaaniyiintu ka qabsadeen qaaradda Yurub. markii uu xilka wareejiyay Maxamed waxa uu ku noqday magaalada Manisa halkaas oo ku guursaday isla markaana uu ku xoojiyay khibradiisa military. sanadkii 1451 ayaa waxaa geeriyooday aabihii muraadkii labaad waxaana uu sidaa kula wareegay taajka boqortooyada Cusmaaniyiinta isagoo ka khibrad iyo faan badan sidii markii hore uu ahaa. waxa uu yoolkiisa ugu weyn ka dhigtay qabsashada Constantinople Istanbul oo markaa caasimad u ahayd boqortooyadii Byzantine-ka ee Kiristaanka ahayd. inkastoo magaalada marar badan la hareereeyay haddana ma jirin cid gudaha u gashay taasoo dhalisay in Sultaan Maxamedkii labaad uu dejiyo qaabkii uu uga gudbi lahaa caqabadaas. dagaalkii Istanbul iyo sida uu ku bilowday suldaanka ayaa diyaariyey ciidan tiradiisa lagu sheegay ilaa 20,000 oo askari. wuxuu magaalada ka go'doomiyey dhinac kasta badi beriba. duulaanka ayaa socday in ka badan 50 maalmood waxaana gidaarada magaalada lagu garaacay hub culus ilaa inta ay ka dumayeen. ciidamada uu hogaaminayay Sultaan Maxamedkii labaad ayaa 29 May waxay gudaha u galeen oo ay qabsadeen magaalada sidaana waxa uu ku kasbaday magaca Al-Faatix. ciidamo uu hogaaminayay Maxamed Al-Faatix ayaa Istanbul galay 29 May 1553 waxaana sidaa ku soo afjarantay boqortooyadii Byzantine-ka ee Kiristaanka ahayd. Maxamed Al-Faatix oo markaa da'diisu ahayd 21 jir ayaa jab aan la filayn gaarsiiyey ciidamadii boqortooyada waxaanu halkaa ku dilay boqorkii xilligaas Constantine Byzantine-ka ee Kiristaanka ahayd. waxa uu muddo kooban gudaheeda ku qabsaday dhul ballaaran oo gacanta u galay boqortooyadii Cusmaaniyiinta ilaa uu ka gaaray qaybo ka mid ah Talyaaniga. maanta Maxamed ujeedkiisu waxa uu ahaa inuu qabsado Roma oo waagaas ka mid ahayd caasimadaha ugu waaweyn caalamka. hase yeeshee wuxuu Sultaan Maxamed Al-Faatix geeriyooday 3 May 1481. taariikhyahanadu waxay ku tilmaameen inuu ahaa nin aqoon badan leh kuna hadli jiray luqadaha Farisiga, Carabiga, Griiga iyo Talyaaniga. maktabadiisa waxaa laga helay buugaag laga qoray maadooyinka injineernimada, xisaabta, cilmiga xidigaha iyo hawada sare. taariikhdii hore iyo falsafadaha waxa uu sidoo kale caan ku ahaa gabayada iyo farshaxanka. waxaa la rumaysan yahay inuu in badan akhriyay taariikhda boqorkii Giriigga ahaa Alexander the Great oo isagoo da'yar xukumi jiray qaybo badan oo caalamka ah. Sultaan Maxamed Al-Faatix oo ku geeriyooday da'da 49 sano ayaa taariikh muuqata uga tegay caalamka gaar ahaan dunida Islaamka.